Asalaamu calaykum, halkan waa Saciid Madaali Sports. Waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Mohamed Salah oo ka tagaya Liverpool isagoo fariin cajiib u diray taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Waa kuma ciyaaryahanka lagu bedelayo hadduu Salah ka tago Liverpool ayaad ku maqan saaxiibayaal. Ha iloobin inaad subscribe saarto, like dhahdo video aadna share gareyso. Bal marka hore haddaan ku bilaabno taariikhda Mohamed Salah iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Mohamed Salah waa ciyaaryahanka reer Masar wuxuuna ku dhashay 15 Juun sanadkii 1992 wuxuu ku dhashay magaalada loo yaqaano Basayun. Waa weeraryahanka reer Masar oo si weyn loo tixgeliyo, mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican dunida. Wuxuu noqday halyey ka tirsan Liverpool isagoo gool dhaliyaha saddexaad ee ugu badan taariikhda kooxda. Noloshiisii hore iyo bilowgiisii kubadda, Salah wuxuu ku dhashay magaalada Basayun wuxuuna xirfadiisa ku bilaabay kooxda EL Mokousoloon sanadkii 2010 isagoo 17 jir ah. 2020 wuxuu u wareegay FC Basel halkaas oo uu ku guuleystay 2 horyaal oo isla ah, isla markaana uu si weyn uga dhex muuqday Yurub. Safarkiisa Yurub iyo Chelsea ee Itaaliya. 2014 wuxuu ku biiray Chelsea FC isagoo noqday masaarigii ugu horeeyay ee kooxdaas u ciyaara. Kadib wuxuu u wareegay kooxda FC Fiorentina amaah ugu wareegay, kadibna waxaa si toos ah ula soo wareegtay kooxda AS Roma. Talyaaniga ayuu si dhab ahaantii ugu iftiimay, gaar ahaan Roma, taasoo keentay inuu noqdo xiddiga la raadinayo kubadda cagta. Xilligii dahabiga ahaa ee Liverpool 2017 ilaa 2026. 2017 wuxuu ku biiray Liverpool FC isagoo halkaas ku noqday halyey dhab ah. Guulihiisa ugu waaweyn wuxuu ku guuleystay Premier League 2 jeer, 2019 ilaa 2024, UEFA Champions League wuxuu ku guuleystay 2019 FA Cup-ka, Carabao Cup-ka 2 jeer uu qaaday, Community Shield sidoo kale wuu qaaday. Rikoorada cajiibka uu sameeyay waxaa ka mid ah ciyaaryahankii ugu dhaqsiyaha badnaa ee 100 gool oo ka dhaliya Liverpool horyaalka, mid ka mid ah goolayaasha ugu badan taariikhda kooxda. Xulka qaranka Masarna markiisii ugu horeysay wuxuu saftay 2011 wuxuuna hogaamiyay Masar ilaa iyo FIFA World Cup 2018 wuxuuna gaaray dhowr finaal oo African Cup of Nations oo ka mid yahay. Sidoo kale Salah haddaan fiirino ka tagida Liverpool, Mohamed Salah ayaa la filayaa inuu soo gabagabeeyo safarkiisii cajiibka ahaa ee uu la qaatay Liverpool dhamaadka xilli ciyaareedkan. Weeraryahanka ayaa heshiis la gaaray kooxda Reds isagoo ka oggolaanaya inuu soo xigto cusub 9 sano oo taariikhi ah oo uu ku qaatay Anfield. Salah ayaa muujiyay rabitaankiisa in ogeysiiskan la wadaago taageerayaasha sida ugu dhaqsiyaha badan si uu u muujiyo daahfurnaan ku saabsan mustaqbalkiisa, taasoo ay sabab u tahay ixtiraamka iyo mahadnaqa ay u hayaan iyaga. Isagoo laga soo bilaabo AS Roma xagaagii 2017, marka 11aad ayuu si degdeg ah isugu taagay isagoo ka mid noqday ciyaartoyda ugu waaweyn ee taariikhda Liverpool, isagoo kooxda ka caawiyay inay ku guuleysato 2 horyaal ee Premier League, UEFA Champions League, FIFA World Cup, UEFA Super League iyo FA Cup, iyo 2 Carabao Cup, isagoo sidoo kale ku guuleystay FA Community Shield. Tirada goolasha uu gaartay 255 gool 435 kulan oo uu saftay ilaa iyo hadda ayuu ka dhigaysa xiddiga reer Masar kan saddexaad ee ugu goolasha badan taariikhda Reds, isagoo ku guuleystay Koobka Dahabka ee Premier League 4 jeer iyo abaalmarino shakhsiyadeed oo badan. Iyadoo weli wax badan ay harsan yihiin xilli ciyaareedkan, Salah wuxuu si buuxda diiradda u saarayaa inuu kooxda u keeno natiijada ugu fiicnayd ee suurtagalka ah. Sidaas darteed, waqtiga si buuxda loo dabaaldegi doono dhaxalkiisa iyo guulihiisa wuu imaan doonaa dabyaaqada sanadka marka uu macsalaameeyo Anfield. Sidoo kale Salah wuxuu fariin cajiib ah u diray taageerayaasha Liverpool. Mohamed Salah ayaa fariin u diray taageerayaasha Liverpool kadib markii uu shaaciyay inuu ka tagayo kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkan 2025-2026. Weeraryahanka reer Masar ayaa macsalaameyn doona marka uu soo gabagaboobo xilli ciyaareedkiisa 9aad ee uu ku qaatay kooxda, isagoo ka mid noqday ciyaartoyda ugu waaweyn ee abid xirta fanaanadda Liverpool. Su'aal: Salah wuxuu ku yiri muuqaal uu kusoo baahiyay baraha bulshada, "Salaan dhammaan, nasiib darro, maalintii waa timid. Tani waa qaybtii koowaad ee macsalaameynteeda. Waan ka tagayaa Liverpool dhamaadka xilli ciyaareedkan. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo inaan dhaho weligay ma aanan malayn sida qoto dheer ee kooxdan, magaaladan iyo dadkan uga mid noqon doonaan noloshayda. Liverpool ma ahan kaliya koox kubadda cagta, waa dareen, waa taariikh, waa ruux. Ma awoodi karo inaan erayo ku sharxo qof aan ka mid ahayn kooxda."
waana wada dabaaldegnay guulo, waxaan ku guuleysanay koobabkii ugu muhiimsanaa, waxaan si wadajir ah ugu gudubnay waqtiyadii ugu adkaa ee nolosheena. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo ka mid ahaa kooxda muddadii aan joogay, gaar ahaan saaxiibadeyda ciyaartoyda ahaa, kuwii hore iyo kuwa hadda, iyo taageerayaasha. Erayo iguma filna. Taageerayaashaydii i siiyay waqtiga ugu fiicnaa ee xirfadeyda, iyo sida aad ii garab istaagteen waqtigii ugu adkaa, waa wax aanan weligay iloobi doonin, waana wax aad had iyo jeer ila qaadan doono. Ka tagista marnaba ma fududa. Waxaad i siiseen waqtigii ugu fiicnaa ee nolosheyda. Mar walba waxaan ahaan doonaa mid idinka ka mid ah kooxdan. Mar walba waxay ahaan doontaa gurigeyga, aniga iyo qoyskeyga. Waxaad ku mahadsantihiin wax walba. Sababtiin awgeed weligay kaligay ma socon doono, ayuu kusoo gabagabeeyay war-saxaafadeedka uu baraha bulshada ku faafiyay Mohamed Salah. Haddaba su'aasha waxay tahay saaxiibayaal, Mohamed Salah booskiisa ayaa lagu buuxin doonaa? Marka ka Saciid ahaan, aniga ahaan ma u maleynayo inay Liverpool heli doonto xidig Mohamed Salah oo kale ah. Isagoo Mohamed Salah waxaan ognahay inuu wax badan u qabtay, Champions League uu qaaday, 2 Premier League, wax walba oo Liverpool u baahneyd inuu kula guuleystay kooxda kubadda cagta Liverpool. Balse ma u maleynayo in Mohamed Salah booskiisa qof buuxin kara in la heli doono. Sababtoo ah haddaad fiiriso ciyaartoyda adduunyada Yurub ka ciyaara, ma jiro boos Mohamed Salah u qalma. Ama haddaad fiiriso ciyaartoyda ugu fiican waxay haystaa kooxooyinkooda ayaa haysta, sida Vinicius Junior iyo Lamine Yamal. Macquul maaha inay soo saxiixdaan. Sidoo kale Mbappe inay keenaan macquul maaha, Rafinha inay keenaan macquul maaha. Marka sidoo kale Haaland inay keensadaan macquul maaha. Marka waxaan dhihi karaa ma heli doonaan Mohamed Salah xidig u dhigma, ayaan isleeyahay. Waa iska macquul xidig oo da'yar ah sida Lamine Yamal oo kale inuu kooxda akademiyad kasoo baxa ama inay soo gadato, laakiin uma maleynayo Mohamed Salah xirfadiisa, khibradiisa iyo sidoo kale aragtidiisa dheer, uma maleynayo inuu buuxin doono xidig kale. Saaxiibayaal, waad mahadsantihiin. Intaad nala soo gaartay, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo, like dhahdo videoga, aadna gaarsiisaan 100 subscribe. Aad mahadsantihiin.